السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي أصحابتي إذا قالي إيه ولا له هيك شرفت له وولاشين إلفيس جنرال كأيدا ونسان وإلفيس فاميلي جنرال آد أيان إذن كوجي حسابريها إذن كما كان هاي إله سبحانه وتعالى إذن بركيه إلهنا إذن حفظه إلهنا إذن إلاليو ميلو البؤت كسجنتهن بإذن الله الكريم كبدهن جردونك إله جور ونكسن هسيو wiilasheena gurdoonka ilaahay gur wanaagsan ha siiyo biidni illaahi kariim reer walba oo islaama oo soomaaliyeed oo isguursadana ilaahay waxaan ka baryayaa inay isku xasilaan oo isku qaboobaan biidni illaahi kariim walaalahayga qurbahana sidoo kale waa u ducaynayaa ilaahay subxaana watacaala ha ilaaliyo ayakii awlaadoodaba ilaahayna ha xafido ilaahay subxaana watacaalana awlaada ha u ilaaliyo ilaahayna awlaad wanaagsan oo diintooda qaadato oo ku adkaato oo ku dhaqanto ilaahay subxaana watacaala oga dhiga awlaada biidni illaahi kariim baaryaalna allah oga dhigo insha allahu tacaala qurbaha uu iska dhib badan yahay ilaahay shartiisa ha ka difaaco isagaa raxmaan ah ilaahay unbaa u baryaynaa biidni illaahi kariim walaalahano walaalahayga qaaligay waxaan rabaa maanta inaan halkan inkugula wadaago arrin waayadanba baraha bulshaha haysatay oo qof walba oo median social mediaha ku jiro uu si uga hadlaayey uu si u cabirayey marka qof walbana aragtidiisa ayuu cabirayey iyo wixii marka wixii markaas meesha yaallo unbuu aragtida ishiisa waxay arkaan unbuu kasoo qaadanayay laakiin qof labadaas qof oo mar walba laga hadlaayay oo la hadalhayo qof hadda si truus u abaari karo ama u yaqaanay ma ay jirin inta badan dadka ka hadlaayay siday u badnaayeen dad waxaan arkayay isaga maxaa la dhihi jiray xataa arrimo khaladaada iskaga hadlaayo oo gabadha xaggeeda xataa waxyaalo afifiicneen oranayo ayaa iska jiray marka way wanaagsan tahay sideedaba in la isxushmeeyo oo la is ixtiraamo marka walaalahayga qaaliga waxaan rabaa inaan idinla wadaago walaashay Esther Kurlibaax iyo saygeeda Ibrahim maxaa ka taqaanaa Esther Kurlibaax maxaa ka ogtahay Esther Kurlibaax aniga shakhsiyan ka ilfis ahaan waxaan ku aqaanaa ama aan ka aqaanaa inay tahay gabar bini'aadanimada wax ka taqaano gabar wanaagsan gabar dadka masaakiinta jecel inay wax siiso ama u gargaarto jecel Esther waxaan ka aqaanaa inay tahay qof bini'aadanimada wax ka garanayo inay tahay ayaan ka aqaanaa Esther Kurlibaax wallaahi intii hadda aniga aan ka aqaana aqooniska ka ilfis ahaan way ila wanaagsan tahay qof wanaagsan ayay maasha allahu tacaala ila tahay biidni illaahi kariim wayna tahayba haddaa si u fiirisa aad bayba u tahayba waayo sababto ay tahay inta Esther Kurlibaax aan ka wada ognahay siigeeda intuu qabay waxaan u malaynayaa Esther baraha bulshada waxa ay kala kulantay ama dhibaatooyinka baraha bulshada ay kala kulmaysay qof u dul qaadan karo ama u aamusi karo arrimahaas oo kale inay jirin waxyaalihii soo wajahayay gabadhaas wallaahi been idin sheegay wixii gabadhaas soo wajahayay ama waxyaalo lagu dhahay rag iyo dumarba qof u dul qaadan karo oo bini'aadan inuusan jirin baan aaminsanaa aniga ka ilfis ahaan sababta ay tahay waxa waaye Esther gabar walaasheena waaye ayadii saygeeda jaceyl isku guursadeen saygeeda anigagan waxaan dhageystay iyo isagoo leh haddaba xataa YouTube-ku ku jira isagoo leh aniga Esther waxaan jeclaa 1 sano iyo biyo jaceylkaygana way iga hoos qaadi weyday wayna ii ogaan weyday wayna igu ceyrisay imana ay rabin xaajigeeda isagoo lama arkaani intaas waan ku dul wareeganayo dhahay maalinka dambe wuxuu dhahay waa isbiimee iskaga sheego marka iskaga sheegtay uu isaga sheegtay xataa horey kamay qaabilin muddo iyo dhahaysa maya qofkan qof yar waaye qofkan qof saan waaye dee calaf yaa celin karo ilaahay subxaana watacaala labada qof oo insaanka wuxuu ka dhex abuuraayo ama qadarkiisa ciduma hor istaagi karto mana celin karto Ibrahim iyo Estherna imtisaam ayaa ka dhex qayrinaysay oo dhexdooda laga abuurayay alxamdulillaah mideeda kaleeto annagu haddaan nahay dumar Soomaaliyeed annaga ayaa is ciibino annaga ayaa is dulmino annaga ayaa isku xadgudubno sababtu ay tahay waxa waaye raggu waxay caado ka dhigteen inay gabadhan xumeeyaan ayagoo gabadhan xumeeyey inay haddana gabar kale ay u qoslaan oo ilka u cadeeyaan oo ay ka dhigaan tan inuu cadeynayo inuu madoobeynayo shalay tii la joogtay ayuu cadeyn lahaa oo madoobeyn lahaa bilxaqiiq nin xaaskiisa oo cunug u hayso oo ilmo asaga uu dhalay umulku nin furay oo ka tagayna waxaa bilxaqiiqa gabar kale uu hadda garabka soo qabsado ama uu la niikiyo ama hadba dhinac uu ka mara ama uu dhunkado inuusan waxba feebara u haynin ayaa bilxaqiiq gabadha ninka hadda golonka uga jirtana gabadhii cunuga ninkan u dhashay kama ay fiicno kamana ay fali badno waxaa arkaya rag waaweyn oo leh wiilkii islaanta weyn qabay gabadhi weyneed
ninka ragga ah iyo qofka dumarka isku mid ma noqon karaan ayagoo isku da haddana isku mid ma noqon karaan qofka dumarka way dhalaysaa da'day dhashaba way kala daadanaysaa way jilcaysaa way rafaadaysaa way dharfaysaa 12 caawa dhan bay soo joodaa 12 habeenka dhan bay ilma haysaa way nuujinaysaa way kala celinaysaa way kuu karinaysaa way kuu dhaqaysaa way kuu hagaajinaysaa way kuu asturaysaa way kuu goglaysaa inta ayada ay maraysa adiga ma mari kartid adiga ninka maxaa diidayo qofkan dumarka marka inay cimri degtagto oo la dhaho way ka weyntahay heblo ninka way ka weyntahay qofkii hadduuba dhibka iyo hawsha adduun haddana iyadu ay saas tahay oy istar dhib ayna dheer tahay dhib yacni dhibka dumarnimo ay haysato iyo haddana waxay dheereed dumarka intooda badan meel kulul oo aad u kulul oo qaxooti oon caasimad ahayn magaalo weynna ahayn ayay ku nooleed oo haddana ku ilmo korsanaysay sayluun bay lahayd way shaqaysanaysay ilmaheeday korsanaysay ilmaheeday biilanaysay even haddii maanta istar ay xaajigeeda qiyaani lahayd ama xaajigeeda ay dembi ka geli lahaydna horumarka iyo hore u kaca ay samaysa ma ayna samayn lahayn waayo waa laga jari lahaa fahmaysaa ilaahay wuxuu qadaray asagan inuu qaxootigii fadhiyo una waxba camal ahaynin istara nairobi ay soo degtay guri weyn ay karaysatay ilmaheeda ay golomada ku haysato maasha allah oy mushaaxayso nolol qurux badan ayay ku jirtaa oo aad u qurux badan nolosha quruxda badan bili aadan ma gelinin bili aadanna uma samaynin haa qof walba walaal wuu leeyahay garab qabto qof walba ehel garab qabto caawi wuu leeyahay fahmaysaa qof walba walaal wuu leeyahay si walba hadduu walaal kuu caawiyo ilaahay subxaana watacaala wuxuuna kuu qadarin una kuu xugmin ma cuntid mana ku raaxaysatid ilaahay wuxuu qadaray istar inay qaxootigii iyo kuleelkiis iyo dhibkiis intay kasoo tagtay nairobi ay soo degtay guri qurux badan ay degtay maasha allah nolol qurux badan ay samaysatay horay oo usii kacday istar waxay leeyahay islaanta weyneed waxaan arkayay nin qoslayoo leh oo istar markaa la joogtay ma aadan faraxsanayne ma qasab baa kula joogto maxaad hadda u faraxday istar qasab kulamuu joogin wuu ku faraxsanaa nolol fiican buu ku jira oo wanaagsan weliba ma fahmaysaa markaad aad leedihiin hadda maxaa u faraxday hadda waa nin ay ku jirto yacni istar ku jebi oo yacni istar ciil ha ka aragto inaan yacni baashaalayo nin ay ku jirto waay oo madaxa ciidda ka ceshanayo laakiin istar ma aysa jabin way ka guulaysata beenku uma sheegayo horumarna way samaysatay alxamdulilaah nolol fiicanna way ku jirtaa ilaahay baa ku maadsan canugteedina way haysataa nin marka cunugiisii loo dhalay oo umul loo yahay xaaskiisa dareemi waayey umusha qiimo ayay leedahay maxaad u malaynaysaa marka ninka dafiray oo xaquuqdeeda ku dheelay maxaad u malaynaysaa marka muxuu bili-aadanimada ka yaqaanaa qofkaas waxba kama yaqaana bili-aadanimada bilxaqiiq waxaana u sheegayaa oon halkan fariin oga dirayaa dadka baraha bulshada ku jiro oo islaanti weyneed islaanti saan ahayd islaanti kan istar maadinkaa hooyadeed ka umuliyey maadinkaa hooyadeed ka dhaliyey ma taariikhday dhalataa taqaaniin ma xilligay dhalataa taqaaniin ma qof jabad iyo jid kula jiray baa inkula jiro oo wax la cunay oo la jaan qaaday ma qof waxaa idinkula jiro maalinka yareed ilaa hadda la soo koray oo la soo weynaaday miyaa idinku jiro waa may tacabir ayaad wax ku sheegaysaan waad un cabiraysaan oo keliya waxaad cabiraysaan waxba kama jiraan istarna ibraahimka ma uu yaro wejigiisa ayay ka muuqataa wuxuu yahay waa i fahanteen oo malaynaya ma wuxuu garan waayey shalay xaaskaada waxaad ahayd iyo sidii aad ahayd iyo sidii aad ku jeclaatay way kugu qaadatay adaana jeclaaday shalayto adaana daba ordayey hadduuse ku faraxsanayn muxuu shalay u lahaa xaaskayga hal sanaan jeclaa oo i diidaysay muxuu shalay u lahaa hadduuna ku faraxsanayn muxuu ka rabay muxuu u jeclaaday muxuu u guursaday farxad inaan mabaysiinayna muxuu u guursaday ibraahim iyo istar markay isguursanayeenna waad wada aragteen oo bilowgoodii ugu horreeyey waa wada aragteen waana ogtiin istar agteeda farxaduu ka helay nololuu ka helay nimcuu ka helay barwaaquu ka helay dee soomaalidu waxay tiraahdaa nin abaalgala waa la arkay laakiin nin guda lama arag soomaali ayaa horey ugu mahmahday waa sax midda ayada mideeda kale haddaan dumar nahay marka gabadha dumarka ee la furo maxaan u cambaaraynaa oon u jecelnahay inaan ninka garab siino maxaan u jecelnahay maxaa ninka markaa garab siinayso ma hooyada ay aabahaba dhalay soomaalidu waxay tiraahdaa intii warasa ayaa walaal mahmahabaa ahayd dumar haddaan nahay annaga ayaa walaale waa inaan dheefta isku garab qabanno waa inaan annaga iswaanino waa inaan annaga wax isku sheegno waa inaan iscaawino ma ogiya ma ahan inaan maanta walaashaada maalinkay garab kaaga baahanta inaad walaashaa ku dhiiqaysato waa laga qurux badanya oo waxaad rabta aad tiraahdo
waxaan arkayay gabar ani taasoo kale haween maba ku tilmaami karaba noocay taa xataa ma garanaya leh haddaa kasoo tagtay islaantii weyneed waa ku faraxsanahay inaa gabar yar la dheeldheesho haddaa kasoo tagtay gabadha yar hadday hadda gabar yar tahay islaan weyn ayaa idan mari doontaa waxaase la yaabaa aqli xumadooda dumarka nin shalay haweentiisa uu shalay garabka haystay uu dhunkanayay uu xabadka gashanayay uu hoosta gashanayay maanta leh tu kale inta soo qaaday ku jibinayo leh heblaha aragta ahaan camal gollanka usoo gashanayo taas muxuu siin doonaa asaga ninkaas muxuu siin doonaa ma waxay ka fiicnaan doontaa naagta cunuga u dhashay asagoo ku abtirsanaya miyay ka fiicnaan doontaa waa maya maalin dhexdaas istaraan wacay arrin baa raba inaan weydiiyo waan wacay taleefanka asaga uu leeyahay ayaan ka wacay wuxuu ii malayaa marka islaamihii dhahayay ninka waa kaa furanaynaa iyo ninka waan kaa wadan islaamihii lahaabuu ii qabaa marka waan wacay igamuuse qaban wuu igu dhageystay waa ku celiyey muu iga qabanin waa ku celiyey muu iga qabanin yacni guriga ayuu ka fogaa yacni wuxuu diidayay asagoo ister ag fadhinin inuu taleefanka iga qabto markuu ister u tegey ayuu taleefanka iga qabtay markaasaa ira cabaaraan kuwa caaye markaasay tiri xaajigaygaa la maqnaa telefoonka markaasuu yiri haa waan kuus intii yacni aan soo socday bay gabadha i wacaysay oo waxaan raba marka adiga ku imaada inaan ka qabto sax waa arrin wanaagsan arrintaas uu sameeyey arrin xun maahan maasha allah waa ku taageersanaa arrintaas ayada sababtu ay tahay xaaskiisa ayuu la wadaagayay waxa runta uu tusayay istarna ibraahim inuu jeclaa annaga dhan baa wada og laakiin xaalad kale ina adinka qiyaasi karin ayaa meesha ku jirto marka annaga soomaali haddaana wax annagoo hubsan waxna ogaanin waa isaga dhex dhacnaa wax walba sida daqsiga caanaha dee dabool la-aanta isaga dhaco annaguna dee soomaali haddaana wax walba sida daqsiga baan dubuqna yiraahdaa yaan dhahnaa marka gabdhaha daatiin waxaa idiin sheegayaa nin gabar xumeeye gabar ma wanaajiyo nin gabar xumeeye waa nin hooyadii xumeeye waa nin walaashii xumeeye waa nin eedidii xumeeye waa nin habrirtii xumeeye ninka gabar xumeeyo ban idinma sheegaayo adinka haddaa dumar tihiinna aflaagaadooyinka ka dumar ahaan aan isleenahay waa laga qurux badan yahay aan iska dayno ma fiicne qof adiga aadan wax ka aqoonin waxa uu yahayna waxa u geysanin oo ha dhibaataynin hana aflagaadeenin gabadhaas hadda dad nin weynaa wuxuu lahaa islaanti weyneedoo wiilka furaay yaa ka cafinaya maalinta yowmal qiyaama asaga markuus islaanti weyneed leeyahay asaga ma arka miyaa intuu dhan yahi waa nin gar iyo gafurlaanta isleego weyni badan ninka waxaas ku hadlaya asaga ma is arka miya isma arka islaan laayay dhahan soomaalida ayay tiraahdaa ku mahmahdaa asaga ma arka miya soomaalida waxayse tiraahdaa maroodiga takarta asaga saaran ma arkee takarta maroodiga kala saaran buu arkaa sababto ay ta markuu leeyahay islaanti weyneed asaga hooyadeed muu ka dhalin ma yaqaano jabad lamuu gelin jid lamuu marin waxay taha ma yaqaano maxaa u geyste waa walaashiisoo kale gabadhanadii walaasheen ahayn iyo wadaadka kala tegayay gabadhii heblaaye aheedoo walaashana ahayd gabadhii ister ahayd iyo xaajigeeda maxaa kala dhex maray dadka social mediaha ku jiro waxay ku xun yihiin wax ayna hubsanin bay saafaraha ula galaan markaasay waxay rabaan ku tilmaamaan oo waxay rabaan ku sheegaan waxaasna waa laga qurux badan yahay waana laga fiican yahay qofka insaanka waxaadan ogeyn inaad ku dhoodhoobto wax wanaagsan maahan anigu waxaan ogahay ister iyo ibraahim inuu ister jeclaa si xad dhaafa uu u jeclaa si wanaagsan uu u jeclaa xaaskiisa laakiin waxyaale adinka hadda inaad tacabiri karin ayaa jiro marka wixii jiro intaad ka ogaanaysaan ama aad ka maqlaysaan ha ku degdegin oo faraha saa duuqa ula dhihina wixiina ogeyn isterna waa gabar wanaagsan waa gabadha walaashana waa gabadha muslin waa gabadha dadka caawiso waa gabar bili-aadanimada wax ka taqaana ister bilxaqiiq runta markaa idiin sheega waa gabar bili-aadanimada wax ka taqaano waxaa laga yaabaa iskuuli beriisi ilmaheeda u karsatay intaasoo xaqli inay la cunaan ayaa laga yaabaa oyna ugu talagelin marka qofka sida uu yahay iyo qaabkiisa ayaaba ka cabiri kartaa waxa uu yahay ibraahimna hadda ma faraxsanee markuu ister la joogay buu faraxsanaa uu ka fiicnaa siduu hadda yahay uu ka wanaagsanaa arrintaas ayaan rabay inaan idiin faahfaahiyo walaalahayga qaaliga waana idin jeclahay meel kasta ood ku sugan tihiin allah idin barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq